dhegaystayaal sunnada eebbe siday ku dureersatay qofkii cimriyaa muddada uu ifka joogo wuxuu maraa heerar dhowr ah oo isxiga heerar jiritaankiisa qaabeeya tabartiisa iyo waxmaamintiisana si weyn u saameeya mar waa carruuroo waa dalandal dabadeed waa dhalaan hadduu lab yahay gaban baa la yidhaahdaa hadduu dhadig yahayse waa dhoocil marka xiga waa kuray ama waa foodley hadday gabar tahay dabadeed waa barbaar hadday gabar tahayna waa inan ama waa gashaanti marka xiga waa garmadow ama waa hablaweyn hadday dumar tahay marka xiga waa oday ama waa habar marka xigana waa coobir xaaddu caddaatay fadhigana aan ka kici karin kolka uu carruur yahay amaba uu waayeelo qofku isaga ayaa daryeelka inta kale u baahan ha yeeshee waa ciidan inta uu heerarka dhexe ku jiro oo isaga iyo waalkiis ayay dunidu magan u tahay noloshuna ay ku dhisan tahay sida loo bartay heerarka nolosha ee ay u badan tahay in ruux waliba maro heerka gabowga ayaa ugu dambeeya markaasoo uu fisho loona filo goor aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku biiri doono taasna waxbaa ka jira inkastoo murtida soomaalida sida ku xusan dhallaannimo dhallinyaranimo iyo xoog toona aan kor walba geerida lagaga badbaadin lagagana gabban karin waxaa la yidhi oday iyo barbaar uu dhalay ayaa maalin maalmaha ka mid ah xoola wada raacay geed weyn oo ay harsanayeen ayaa waxaa uga muuqday laamo toostoosanoo ula wan wanaagsan noqon kara kolkaas buu inankii inta godin qaatay geedkii fuulay si uu uga soo goosto laba uloodoo isaga iyo odagu ay geela ku ilaaliyaan goor dhexe oo uu weli hawshii ku jiro ayuu midhacsaday hoos iyo duqa dhalay ee hooska geedka doonyaysan mase madaxu waa wada ciro mase waa wada xooshoo tin madow laguma arko mase xaaddii gacnuhuna way wada caddaatay kolkaas buu damcay inuu la kaftamo oo sarbeeb aan ka naxin uu kula kaftamo wuxuu yidhi aabbow maxaa malakamowd mira u bislaaday odaygiina waxa inankiisu u jeeda intuu gartay ayuu ugu jawaabay sarbeeb kale oo waaye aragnimo xambaarsan intuu kor u dhowray ayuu ugu tanaagooday maandhow hadda curdankana waa ku cunaayo ogow inkastoo marka horeba la kala geed adeegsan yahay haddana waxay u badan tahay ruuxa gaboobaa inuu cudurradana u nuglaado taasoo noloshiisa sii adkaysa allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray cismaan yuusuf oo raggii cimriyey ka mid ahaa ayaa bilowga 70-adii qarnigii hore waxaa gurigii uu xamar ka deganaa ku booqday qoraaga soomaaliyeed ee caanka ah sheekh jaamac cumar ciise caafimaadkiisa kolkuu wax ka weydiiyey ayuu cismaan ku jawaabay aniga iyo gabow baa collownay waxba kolkuu iga qaadi waayey ayuu ciidan doontay markaas buu cudur soo helay dabadeedna waa iga adkaaday wuxuu gabowgu ku jiraa dhibaatooyinka waaweyn ee laga calaacalo dadka qofkii aad u waayeelaana uu ka sheegto xagga suugaanta soomaalida haddaan eegnana waxaa muush ka ah murti badanoo tix iyo tiraabfaneedba leh arrintaasna si faahfaahsan lagaga hadlay waxaa jira gabayo ay tiriyeen qaar ka mid ah maansayahanadii da'doodu badatay kuwaasoo si wacan u tilmaamay siyaalihii uu guga weyni noloshooda u dooriyey ee marar badan uu u saxariirshay raggii haddaba da'doodu weynaatay dabadeedna maansada kaga calaacaray waxaa ka mid ahaa gabyaal la odhan jiray maxamed xaashi oo reer ciideed ahaa markuu aad u cimri dheeraadayna ka sheegtay sidac wixii uu da'da ka mutay farshaxan buu ahaaye meeri si aad u tira yar ayuu inoogu sheegayaa siyaalihii kala duwanaa ee ay da'du xag walba uga saamaysay hor iyo abbaataba wuxuu garwaaqsanayaa markuu nindhexaadka ahaa quruxdii iyo qaab wanaaggii uu lahaa xarragadiisii iyo dharkii qaaliga ahaa ee u xidhan jiray sida khayli guduuddii ay dadka oo idiri ku kuunyi jireen wuxuu xusuusanayaa qalabkiisii dagaalka ee markuu xoogga ahaa aan had iyo jeer gacmihiisa ka maqnaan jirin gaar ahaan gaashaamadii uu dheegga wiiisha ka samaysan jiray ee rag aan badnayn oo uu ka mid ahaa uuni ay heli karayeen
taasi jeer bay ahayd. haddana waa ayaanba ayaane wuxuu garawsan la'yahay nin aad u dheer oo kor loo wada eego waa kii ahaan jiraye baxaaligiisii siduu gabowgu u dhalan rogay, dhabarkiisii siduu u soo goday ee uu qaansada uga ekaysiiyey iyo ugu dambaystii ragga ninka ugu gaaban siduu uga dhigay. waxaase intaba uga daraa meekhaankii sare ee uu jeer qoyska dhexdiisa ku lahaa siduu hoos ugu dhacay. taasna wuxuu ku tusaalaynayaa wax mudan inaynu la yaabno kuwii ugu dhowaa xigtadiisana uu duqu ka arkay. wuxuu dareemay dumarkii guyaasha badan u dhaxay, raggii uu dhalay ee uu soo barbaariyey iyo kuwii ay iyagaasi dhaleen ee uu awowga u ahaaba inay geeridiisa si wila yihiinoo u belatirinayaan. markuu la hadlo iyo markuu wax uga baahdaba tixganin la'aantii ay kula kacayeen ayuu ka gartay inay iilka la jecel yihiin. waxaa u caddaatay cid noloshiisa dan kalihiiba inaanay jirin kadib markuu iskii wax u qabsan waayey ee uu reerkii callaal ku noqday. xoog iyo xarrago wuxuu soo marayba wuxuu haatan ku dambeeyey dhulyaal aan socodba tahli karin. guxushaa kolka ay reeruhu geediyaan meel dhexe kaga hara, maalin kadib rugihii ay degeen soo gaara, hub oo dhanna ka wata ul dheeroo uu ku tukubo. waxyaabahaas oo idili markay la soo gudboonaadeen ayaa allaha u naxariistay wuxuu maxamed xaashi tiriyey tixwaayadii dambe caan noqotayoo uu arrimaha kaga caraacalay. waxaa naga soo gaaray waxaan khayli dhuugyaha cas iyo dheeg weyera qaatay ee dhalanka aadmigu u baxo sida tan lay dhowray, kolkii horeba dherarkii miya dhabarkii soo gaabtay. ma ka dhaxay dhawaaq uubatiyo dheermataan gebina dhaba reere guureen miya laygu wada dhaafay, ushaan dhaabin mooyee hubkii ma iska wada dhiibay, raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday, kuwii aniga ii dhaxay miya dhimashaday dooniga isii yaay, miyaan sida dhallaan ooyey waxaan dhowrsan jiray ceeb miyaa igu dharaarowday buur. allaha u naxariistee isla maxamed xaashi ayaa waxaa laga hayaa hawraar murtiyeed uu ku soo koobay ugu dambaysta waxa uu gabowgu yahay ama wixii isaga kala soo gudboonaaday. noloshiisii markay si walba kaalmada dadka ugu xirantay ee kortagiina uu cid kale magan ugu noqday, wuxuu ahaa ninkii ku caraacalay show ilaahay intii aan cimro dhirar ka baryaayey doqonnimo un baan ka baryaayey. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa